نعرفه اللي جدا واي إن سيد أي دكاترة تشجعين سببها إبرة هيدهن وحي آنينا ين سيارك أيوب بتصدي صاحبك أيوب بدنا الله ونحرستي halkan aan taaganahay waxa goor lagu aasay majaajilisti aanka ee Cabdi Muruudi Ajakis oo maalmada soo dhaafay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxa halkan aaska lagu sameeyay marxuumka ka soo qayb galay xubna ka tirsan baahda fanka Soomaaliyeed saxafiyiin iyo sidoo kale ehelka loo naxariistay marxuumka halkan lagu aasay waxay dhamaantood ka tacsiiyeen geeridii xanuunka leedahay ku timid loo naxariistay majaajilisti aanka ee Cabdi Muruudi Ajakis waxaana dadka ka hadlay kamid ahaa agaasimaha TV-ga Universal oo muddooyinka la soo dhaafay la shaqeynayay waxa uu sheegay in xanuunada ay u geeriday ka mid ahaayeen xanuuno ka soo wajahay dhinaca sanbada sidoo kale dadka hadla waxa ka mid ahaa dad ay aad isugu dhow yihiin oo muddo soo wada shaqeynayay sidoo kale ehelkiisa waxayna maanta ka tacsiiyeen geerida xanuunka leedahay ku timid loo naxariistay Cabdi Muruudi Ajakis oo maanta ku geeriday magaalada Muqdisho halkan lagu aas walaalkeen uu ka dhintay ummadda Soomaaliyeed khaasatan qoyska nin qaran oo ahaa nin qabiil qoys ma ahayn waxaan ugu duceynaynaa jannada firdawsiga ka waraabiyo waxa muhiim ah oo lagu xasuustaa inuu barnaamijyada ku xiri jiray Soomaaliya tooso inuu dalka u duceeyo barnaamij dalka iyo dadka uu soo duceeyay ma qaban jirin barnaamij kasta dadka uu duceyn jiray in Ilaahay qulubtooda isu soo duwo idinkan waad ka aragteen kulay filmaanta iyo YouTube-yada waa ka daawateen isagoo u duceynaya sababta kaliftay waa in ummadda Soomaaliyeed inay jeclaadaan xigtadiisa anaga koow-kanahay iyo caruurtiisa xaaskiisa iyo intii taqaan iyo inta aan aqoonba marxuumka Cabdi Muruudi Dheere dhammaanteena samir iyo iimaan Allah naga siiyo marxuumka qabrigiisa Allah u nuuriyo kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo jannatul firdawsa Allah ku awaal mariyo waxaan leenahay sabir iyo iimaan runtii bulshada Soomaaliyeed maanta ma baahna in taariikhda Ajakis laga sheekeeyo nin waxa uu ahaa waxa uu yahay dadka oo dhan ay markaas ay wada fahmayeen ayuu ahaa nin aad nabad u jecel ahaa wuxuuna markasta Ajakis aad ugu dadaali jiray dadka masaakiinta in wax loo qabto dalka iyo dadkana inay nabad helaan marka waxaan leenahay maanta saaxiibkay Allah u naxariisto mar kale idinkana waxaan leeyahay aad u mahadsantiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun runtii wuxuu ahaa saad ogtihiin in ummadan madadaaliya kana qayb qaata nabadda magaaladan halgan far badan soo galay dhibaato badan oo soo maray wuxuu ahaa nin ku sifeeyay dhammaan akhlaaqda wanaagsan oo dhan maanta ayuu naga tagay ilaahay ha u naxariisto sabir iyo iimaan Allah ka siiyo ehelkii iyo qaraabada uu ka geeriyooday anagana bacdigiisa ilaahay lama fidnaayo ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta meel kasta ay joogaan waan ugu tacsiyeenayaa Ajakis horta ma ahayn saaxiibkayga wuxuu ahaa walaalkay on muddo badan aan isla soo shaqeynaynin xididna waanu ahayn ma sha Allah marka maanta alxamdulillah tiisa halkaas ku ekeed geeridiisa runtii wayna xanuunjisay laakiin geeridu waa xaq in mar walba la isxasuusiyo ما شاء الله مدة بدن أنا جو أصل شقيني وحن تاريخ دي سك أوجهي إن أصل ولي سبا هرتقف بني آدم أصل أوقفين أنت وذا شقيني إن معناها إن هرتدد مركز الجوجان ويسكت عن مرنا وهذا معناه وعدد وذا شقين كده حسان هن ما شاء الله لكن وحمان كلا حبيراته موصل لهن عبدي دتكو جعلا دتكو سودويناي إن سيد أي دكاترة تشجعين سببها إبرة هيدهن وحي آنينا ين سيارك أيوب بتصدي صاحبك أيوب بدنا مركولو معناه أذيك أسباب بني آدم أسباب لعن ما دنتو تاسبت تاسيلهاد سيارك بدن سببها معناه إبرة هين نفتا دي بيسي مركا الحمد لله رب العالمين هدنا إلهي وأنا قاف صدي مركا أهلك أو كتجي فمك أو كتجي وحان ورجينا صبري إيمان إنه إلهي سي أسجنا كتابك سميدك إنه كسي إلهي ونكدي مرتي لجعليه عبد السيدة أن أجعلنا هي إن لو جعلنا دون إن شاء الله تاسع ورجينا horta ajakis dadaan garanayno waxaan u maleeyahay adduunka ma bukun hoolaba saqiir iyo kabiir marka waxaan leeyahay mar walbo
hadda waa naga jilcan yahay waxaan u baahanahay oo keliya in aan asaga faataxada u akhrino ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo qabrigana allah ku qaboojiyo cabdi qofaana garanaynin male cabdi wuxuu ahaa qof nadiif ah qof asxaabta ehelka qaraabada intaba soo dhaweynaya maasha allah aad iyo aad samar iyo imaan allah naga wada siiyo dhammaantayna waxaa waaye idaa jaa ajluhaa laa yastaakhiruuna saaca walaa yastaqdimuun marka alxamdulilaah inkastoo macnaha soomaalida ay tiraahdo geerida waxay ku fiican tahay qof aadan garanayn iyo geeljir marka markii lagu imaado adiga waxaa waa qaadanaya saacaddiisa qofka saacad looguma daraayo alxamdulilaah waa kaasaa cabdi maanta maalintiisii ahayd